بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka hore waxaan mahadnaqayaa kooxdiina warbaahinta ee telefishinada iyo warbaahinta kala duwan ka socota mar labaadka saaka xafiiskayga waxaan rabay inaan idinku siiyo waxoogaa warbixina oo ku saabsan hawlaha kala duwan ee isbitaalka gaar ahaan hawsha oo maanta hadda ay soo fooleh oo iska degdega oo aan doonay dadka laftooda leeyahay inay bulshada Soomaaliland ka faa'iideystaan ku ilaata kabisha waxaan halkan imanaya teamkii ama dhakhaatiirtii qalliinka oo loo yaqaano Smiling Team ama waa team aynu siin anagu Soomaaliland u naqaanay dad ku qalayay dadka faruuran ama fanaxda cid bas u taqaan dadka dibnoogu jeexan yahay oo ah dadka faruurka ama fanaxda nibas ay yaqaanaan qalliinkaasi waxa weeyaan haday tahay xagga faruurta iyo haday xagga dangaraha tahay labadaba waa sameynayaan waana kuwii horeyba awal buu sameyn jiray iyagoo waqtiyadii hore dibinta ku ekaa doorkii u dambeeyay waxay ku dareen in dangaraha sameeyaan haddana way ku jirayaan labada nooc boo la sameynaya waxay noqonaysaa waa team runtii qalliinkooguna uu bilaash yahay registrationkooguna bilaash yahay aanan wax laga qaaday haba yaraatee aanay jiraynin marka mar haday sidaa tahay cid kastaaba inay ka faa'iideysatay waa laga maarmaan cid la cid iman karta ee Soomaaliland oo dhan iyo wadamada jaarka awal bay ka iman jireen inta hortayga waa fariinaan u gudbinayo dadka waan aad iyo aad taqaana aan jecelahay in looga faa'iideysto qalliinkuna waa bilaash registrationkuna waa bilaash sida oo baayo ahaan jirtay taasi waa taa waana 22 bisha waqtiguna uu kooban yahay waxa filayaa waa laba toddobaad waxa jooga meel fogna kulli waa laga yimaado doonaa marka dadku inay hore soo taabsheystaan registration uu reeri waan bilownay waxoogaa waxaan moodaa in la daahnay dadka message dadka aan gaarsiinay la daahnay oo waqti bilku muddo bila ayaan siin jirnay awal fursad laakiin maanta waqti badan baa ayaa lumay hawlo badan oo ka soo ama wararka iyaga keenayna ugood taasina waa taa wana si hawlaheennii ma taqaana iman jiray dhakhaatiirta kijaabi oo runtii laba team booki dhawaanta naga tagay teamna waa kan hadda sugeyn sanadkii waxay yimaadaan oo 6 jeer kuwana waa 2 jeer kuwa kalena waa 4 jeer waa dad runtii u yimaada tabarruc maaha hay'ad samafal maaha cid kale laakiin wada tabarruc u yimaada kaliya waxay ku kala duwan yihiin kuwii hore kuwana 4 jeer yimaada dhakhaatiirtu waxay istaantiirka Hargeysa ay ku soo gaariyaan kaliya Hargeysa wixii ka dambeeya waxa qaabisay waxa qaba hawo xoog dhan isbitaalka Boorama waxa ku qabo kudaasway dadka qaar kood xogaa jaaja loo sameeyo si accommodation iyo security iyo xoogeen loo bixiyo kuwan iyaguna wax weyn waa inta wax accommodation iyo hotelkooda iyo xoogeen maadaama iska bixinayaan waa free danta ku jirta waxa weey in community-geena ay siiyaan service badan ay siiyaan oo shaqeeyaan intaas oo qof ay ka faa'iideystaan iyo in da'yarteena soo koraysay jaamacada ku jirta iyo dhakhaatiirteenuba ay ka faa'iideystaan tababarka oo skill ay ka kororsadaan muhiimadda ku jirtaayna runtii waa inta aan mar walba u taqaana u martigelino teamka kijaabi guud ahaan waxa weeyaan wax badan way ku soo kordhiyaan caafimaadka dalka ama talaha noqoto ama tababar ha noqoto ama dadka wax u taraya noqoto way ku soo kordhiyaan waa cid kastoo dadka wax taraysana waxaanu leenahay mar walba inaan soo dhaweynay waa bolosiga aan ku shaqeynaa soo dhaweynaa oo aan ku soo dhaweynaa ma taqaana isbitaalka iyo dalka iyo gobolka iyo dalka intiisaba bolosiga aan ku shaqeynaa way runtii sida kale isbitaalka Boorama waxa uu shaqaysi caadiga routiinkiisa oo iska haysta marar badan baynu sii daynay ma taqaana bixintiisa wax ku kordhamay wax ka dhacana ma jiro runtii aad bay ma taqaana iyadoo laba arrimood adeegsan dhakhaatiirta jaamacadda iyo wasaaradda iskaashigaas wuxuu keenay hay'adda koobina la shaqeysa wax badan runtii inay isbitaalka u qabsoomaan ayuu keenay laakiin muhiimadda maanta aan ku yiri waxa weeye aan rabay inaad hawshan ama shirkan iyo saxaafadka ay ku qabtay waxay ahayd inaan ogeysiiyo bulshada Soomaaliland maadaama ay haystaan fursadda bilaashka ee inta laga qaaliga inay ka faa'iideystaan oo aanay war la'aan arintaasi dadku ka baaqanin intaas ayaan idinkana waxaan ka codsanayaa inaad fariintaas ummadda u gudbisaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.